بسم الله الرحمن الرحيم انت waxaan noo bilaabi doonaa exercise oo la xiriiro cashirka doonta aan soo qaadanay insha Allah waxaan ka bilaabi doonaa waxa waaye su'aashan loo diyahay xitaa write each of the following as a rational number rational number sa una waa tiro oo anaha oo jajab ah aan ka bilaabno waxa la yiri number 7 waxay noo la mid tahay 7 oo loo qaybiyo hal jajab waa macnaha B haddaan soo qaadano waxa waa eber waxay leedahay intaan aan noo qaadanaya ana eber loo qaybiyo hal C hadaan fiirino waa -8 waxay la mid tahay leenahay -8 loo qaybiyay hal insha Allah jawaabtaas ay noqon doontaa hadii la idmo waxaan u gudbinaa insha Allah su'aashan kale oo B aydan waxa la yiri write each of the following rational numbers as either terminating or repeating معناها امتحان معناها رجب كان معناها مid number soo noqonaya miya ama soo mid oo hadii la soo qaybiyo isku go'ay waaye insha Allah sidoo kale waxaan ka bilaabi doonaa hadii la idmo ayaan ka bilaabi doonaa waxa waaye -5 over 7 waa 5 loo qaybiyay 7 waxay la mid tahay minus waa markay calaamad minus wata 0.714 285 7 14 285 7 waxaan aragnaa marka numberka inuu soo laabanayo numberkan shanta number macnaha 7 soo kala kan soo kala soo noqday marka kan waxaan leenahay jawaabta waxaan leenahay waxa waaye waa repeating decimal waaye waa soo laabanaya jawaabta markaan soo gaabinaynaa waa repeating decimal insha Allah marka b aan soo qaadanaa hadana b waxa 15 loo qaybiyo 5 jawaabtu waxay imaanaysaa 3 saa ognahay 3 waa soo noqosho macnaha waa terminating decimal waa terminating decimal jawaabtu macnaha okay sina waxa waaye 13 loo qaybiyay 5 jawaabtu waxa waaye waa 0.52 kana xalena waa terminating decimal asana hadii la yidmo sababtoo ah macnaha soo mala laabana insha Allah jawaabtina halkaas ku sameeyna insha Allah marka waxaan u gudbinaa exercise kale oo aan u qaad doono oo wax la homework kan macnaha isku day su'aashu waxay tahay write each of the following rational numbers either terminating decimal or repeating decimal insha Allah waxaan kan isku day jawaabaha macnaha waa sahlayeen si aad iyo calculator ba adeegsanaysaa waa soo qaybinaysaa waa fiirinaysaa haduu soo noqonayo halada waa repeating haduu soo noqonayo go'ayana waxa waaye waa terminating waa insha Allah hadii la idmo waxaan ugu dambaysiinayaa macnaha way xisaabaha noocan aan u baranayna insha Allah motivational way aan baranayna insha Allah hadii la idmo tusaale ahaan hadii aan soo qaadano nambarada kala duwan waxa meel loo adeegsadaa tusaale soo qaado macnaha toolkan wuxuu ka mid yahay buruska shawito kala duwan yahay macnaha mid kastana shaqo loo qabtaa tusaale ahaan nambarada aan soo baranay hadaan soo qaado macnaha natural number waxa lagu talagalay shaqadaas tusaale ahaan dadka marka la tirnaa ko 2 3 4 5 laha ma naqan karto qof in la soo qaado la dhaw macnaha ama dad meeqa qof ay joogto guriga dhaw hal bar ama 2 bar ama 3 bar dhaw marka macquul ma aha macnaha marka natural number ka loo adeegsadaa sidoo kale hadii abaawur leedahay 2 baawur 1 baawur 3 baawur hadii computer leedahay 2 computer waxa soo dhan waxa loo adeegsadaa natural numberska waxa kale oo jira marka dhaqaalaha la adeegsanaa sida bank macnaha akoonada aan leenahay amal AFC waxa gatay $1 tuuraysaa $1 macnaha $1 tuur kartaa even sentiyada tuur kartaa that means waxa waa rational number waxa waa
marna akoonka laga goynayo mar plus mar minus noqonayo minus plus uu leeyahay oo lacagta ku shubata waa plus waxa ka goyso balance akoonka waxa waa minus marka rational number u baahan yahay lana asagana macnaha bangiga macnaha inuu isticmaalo ku qasban tahay markii hadii kale macnaha wax kala shaqeyn ma hadii aan dhaho natural number oo bangiga adeegsana waa adagtahay marka sidaas daraadeed macnaha number kasta wuxuu ku habboon yahay meel lagu talagalay waxaan dhiib u geli doonaa markaan galno set numberska iyo programming marka macnaha type numberka aan ana adeegsan doonaa hadii ay idmo insha Allah 10 meesha ku kooyna hadii ay idmo wassalaamu calaykum waraxmatullaah